السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada asxaabta qaali waxaan maleynaa in ay dad badan isweydiinayaan maarish akoonkeed maxaa ku dhacay, xaguu ka baxay, miyaa la jabsaday, ma bareefad bay gelisay. waa arkay maanta dhan koolashiina faraha badan snapka instagram meelba haday noqoto in ay soo weydiinayseen in ay la murgeyseen runtii waa idinkaga mahadcelinaya sida ay garab taagantiin mar walba. second waxa waaye akoonkaygii maanta hawada ka baxay gacanna kuma hayna ilaa imika allah aclam meeshuu jiro. laakiin sida noo muuqata ama markii la raadiyay la qiimeeyay sababta uu ku maqan yahay ma ahan community guideline ma ahan wax tiktok oo haysta ma ahan waa wax dad shakhsiyaada uu gacanta u galay oo hagareeyeen waaye ayagana ilaa imika haysta. maanta barqadii hore followers way muuqdeen haddana saacada kadib waxay galiyeen deactivate galiyeen way qariyeen asagoo dhanba. so kulay waxa sameynaya waa dad xaasid oo caloosha ka buka waaye xaasidna ma liibaano inta qof walaalkay horumarkiisa ah ka xuntahay wiliga horumar ma gaaraysid wallahi hadda aan ku sheegaya. teeda kale aan ku sheegaa waxa way maari hadda akoon ka xirtidna maari shalay followgan 7 ay ku keentay 570,000 ay ku keentay wili wajiga ku yaala wili way caafimaad qabtaa wili way asturanta sumcadeeda ay shalay ku keensatay haystaa maanta mid ka badan ay keensan kartaa. so anyway waxa waaye alxamdulillah marba haddaa aaminsan tahaybo inaa iga hooseyso oo aan wax ku dheerahay adiga liidan dhib ma lahan waxa waaye hadduu noo soo noqdo alxamdulillah hadduu soo noqon waayana qadarullah ma sha Allah wax problem ma lahan waa samaysan karnaa qof dhintaa laga samraa marka insha Allah niyada khayr u sheega insha Allah.